السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقاليقا ومانطق عانود إيو مركليتو waxaan rajeynaya idinkoo caafimaad qabtiin inaan dib iskugu soo noqonay haddaba akhyaartiina waa maandeeq caanood iyo mar kaleeto maanta walaashiin maxaynay wadaa maanta sidaad hore iga barateenba ama hore aan kugu sheegaba waxaan inay janaalkay wuxuu ka saabsanaan doonaa more hair care, skin care iyo family care sida adigoo hooyaha ciyaalkaaga u korsatay sida ciyaalkaa loola dhaqmo sida familka waxyaabahaas insha allah asxaabteeda qaaliga maanta maxaa inay wadaa maanta waxaa inay wadaa sidee ku heli kartaa saaxiibkaaga dhabtaa ama saaxiibkaaga nolosha haddaba akhyaaray waxyaabo badan ayaa ku heli kartaa saaxiibkaaga dhabtaa haddaba waxaan kasoo qaadaynaa 10 waxyaabood ee ugu muhiimsan ee aad ku heli kartid saaxiibkaaga dhabtaa haddaba akhyaaray haddii aad hore noola joogtana soo dhawow isku soo noqdo wanaagsan haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe naga iloobin adigana free ayay ku tahay maandeeqna dhiirigelin ayay u tahay lana share garay asxaabtaadii familkaagana like tuna hada waa free waa xageena asxaabteeda qaaliga wixii talo iyo tusaale aad qabtiin commentiga waa igu reebi kartiin waa inay furan yahay asxaabteeda qaaliga haddii maanta aan ku bilaawno haddaba akhyaaray 10 waxyaabood aad ku heli kartid saaxiibkaaga dhabtaa maxaa kamid ah number 1 saaxiibkaaga dhabtaa waa midka shakhsiyadaada yani dhamaystiri kara yani adiga haafaa tahay saaxiibkaaga dhabtaa waa haafkaaga kale ee noloshaada dhamaystiraya waayo saaxiibkaaga waa midka markasta ku dhamaystira yani haafka kaa maqan ama waxa kaa maqan waa midka markasta ku dhamaystira number 2 saaxiibkaaga waa midka aad ku dareemaysid xasilooni agtiisa yani saaxiibaa la joogtid aad yani si kaleed inuu kaa baxo ama sir inay kaa baxda ka walwalaysid ama inaad agtiisa gaajo ugu dhimata aad ka baqaysid ama cabsi aad ka qabtid haddaba kaa saaxiibkaaga maaha saaxiibkaaga marka aad la joogtid ama saaxiibkaaga nolosha marka aad la joogtid waa midka aad agtiisa xasilooni ama agteeda ama xasilooni aad ku dareemaysid kaas ayaa saaxiibkaaga dhabta ah number 3 saaxiibkaaga dhabtaa waa midka markasta aa isdagaashiin waayo carabi ilka ayaa iskugu dhow ayagana waa isgalaan ama waa isqariinaa sida Soomaali tiraahdo saaxiibkaaga waa midka marka aa isdagaashiin isla markeena haddana dib aa u heshiisiin marka aa isdagaashiin saaxiibka sirtaada banaanka dhigaya haddaba kaa saaxiibkaaga ma waayo tusaale ahaan markay walaasha ama walaalka mar walba waa isdagaalaysiin waa ogtiin dad guri ku nool oo walaalaha mar walba waa isdagaalayaan markii walaasha ama walaalka isdagaashiin banaanka inta u baxdid haddaba ma dhahaysid walaalkay waa tuug ama saan waa ama walaashay waa soo qaraabataa ceebteeda banaanka ma dhagaysid waxaa isku dayaysaa walaasha ama walaalka wax kasta aad u qabtid inay aninka inku ekaato ayaa isku dayaysaa haddaba saaxiibkaaga nolosha waa sidaas oo kaleeto saaxiibkaaga dhabtaa midka marka aa isdagaashiin sirtaada ama dariska ama asxaabta ama social mediaha aad isku caysaan kaasi saaxiibkaaga dhabtaa marka hore ma uusa ahayn saaxiibkaaga dhabtaa waa midka markii la dagaalo sirtaadii waxa banaanka u dhigin haddana laga heshiiyey kaas ayaa saaxiibkaaga dhabtaa number 4 ama number 4 saaxiibkaaga dhabtaa waa mida adiga taqaanid asagana ku yaqaano waayo wadamadan hadda horo maray markii aad shaqo buuxsanaysid ama iskuul buuxinaysid waxaa lagu weydiinayaa reference waxaa lagu leeyahay 5 qofood oo reference ah ama ku yaqaana keen saaxiibkaaga dhabtaa waa midka referencega nolosha ama aad ku yaqaano waa midka waxa nacabtahay yaqaano kaftankan ka xanaaqday yaqaano waxa jeceshahay yaqaano waa saaxiibkaaga dhabtaa waa midka adigana aad taqaanid asagana ku yaqaano saaxiib aad waxba ka aqoonin kaasi saaxiibkaaga dhabtaa ma ahan number 5 saaxiibkaaga dhabtaa waa midka aad aaminto for life alashan noloshaada completely waa midka aad aaminsan tahay inuusan waxba ku qiyaanaynin naftaada aad ku aamintid hantidaada aad ku aamintid sakareedkaaga aad ku aamintid waa midka aad mar walba aad aaminsan tahay in uu yani waxba uusan banaanka kaa geenin ama aad naftaada ku aaminaysid number 6 saaxiibkaaga dhabta ah waa midka aad waqtiga aad isku heshiin saaxiibaad maani ka meermeeraysanaysa in la kulankiisa saaxiibkaaga dhabta waa midka mar walba waqtiga aad isku heshiin ama waqtiga aad la yeelatid kaas ayaa saaxiibkaaga dhabta ah waa number 6 number 7 saaxiibkaaga dhabta waa midka mar walba aad yani wax kastoo dhaca yani kugu tashanaya waa inaa saaxiibkaaga dhabta ku tashtaa ama asagana uu kugu tashtaa kaas ayaa saaxiibkaaga dhabta ah oo mar walba kugu tashto
يعني صاحب كاغا قاليغا يعني ما أنت ديلك دوف يعني شنبريا هيستا دردارنا ديلك دوف ما أنت قفك وصاحب كلية وامدك وإنه كوغو soo dhaca يعني ciyalkaaga hada qofka ku aamini lahayd hada hantidaada qof ku aamini lahayd hada familkaaga iyo reerkaaga aad qof ku aamini lahayd yani qofka kaliya ee kugu soo dhaca ee yani nolosha kugu soo dhaco maskaxdaada ku soo dhaco ugu horeeya kaas ayaa saaxiibkaaga qaaliga oo yani wax kasta oo dhaco dhibaa kasta oo dhaco farxad kasta oo dhaco garabkaaga waa inuu taagnaado qofka saaxiibkaaga qaaliga yani adigana sidoo kale garabkiisa waa inuu taagnaado lambar 8 saaxiibkaaga qaaliga waa inaad future-ka wada qorsheysataan qofka aad future-ka wada qorsheysataan qofkaas ayaa saaxiibkaaga qaaliga يعني إنا وحبرتها ربتها إنا هرمر جارتها ربتها إنا هنتية لتها ربتها قفك عاد لا تعيشها إنه هرمر وذا جارتان كاس أي صاحب كاجا قاليا قف عاد تعيشها إنا أديك كهر مرتدو أساق كادم بيو كاس صاحب كاجا قاليا ماهن قفك أساقنا جعلنا أديك شال ميشة جوكتي وأساق هرمر وجارو كاس صاحب كاجا قاليا ماهن صاحب كاجا قاليا ومتك مركزته وفيوتشر كأوضة قرشي ستان لمبر 9 saaxiibkaaga qaaliga waa midka qaladka ka reeba subxaan allah hada waa aragna social media waxa ka socdo TikTok haday ahaato Instagram haday ahaato Facebook haday ahaato Snapchat haday ahaato qof walba 80% 20% lama dhihi karo dad wax fiican soo galiyo loo helaa jirto 80% qofka qaawan ama qofka fiqsiga sameeya heesaha iyo neekiya isqaawiya culimada caayo dadka caayo dadka aflagaadeeyo afkiisa laga nabadgelin haduu hadlayana yani saaxiibkaaga qaaliga waa midka ku yiraahdo waxaan waa xumaan yani qof wax arkaysa 800 followers haysto hadana yani love yani qofkii yaqaanaya love loo wada saaraya 100 qofooda fiican had nadiif haday heli lahaayeen wallahi ani waxa iga fiican intaan milyan heli lahaa xumaanta igu taageerta waxaan ka jeclahay 10 qofood oo nadiif ah oo yiraahdo hey maan deeqay waxaan dhibaato waaya ama waa xuntahay ama aakhiradaada ma fiicno qofkaas ayaan ka jeclahay saaxiibkaaga qaaliga waa qofka xumaanta ka reeba ku yiraahda fal yaqul khayran oo liyasmud khayr ku hadal ama iska aamus saaxiibkaaga qaaliga wax kasto dhaca waa qofka xumaanta ka reeba lambar 10 saaxiibkaaga qaaliga waa qofka jannada kula jeclaado sadaqada ku tilmaama agoonta in la caawiyo ku tilmaama ilaahay kuma darnaade sadaqadii bay soo hosgalaysaa wax kasto wanaag oo jannada lagu tagilaa qofka ku tilmaama salaada ku fara soonka ku fara sunnooyinka ku sheega waqtiyada sunnooyinka loo soo dawilgeliyay ku dhahay maanta sunnadaas la soomayaa yani waa qofka wax kasto wanaag oo jannada lagu tagi lahaa kula jeclaado qofkaas ayaa saaxiibkaaga dhabtaa haddaba aqyaaray 10 kaas waxyaabadan soo sheegnay oo aan soo waxay ma jirtaa dad kulmiya yani casriga 11 ku jirnaa marka ma u maleynaayo aniga ina u jiro laakiin aniga waxaan dhihi karaa hal qof waaya halkaas qof yaa waaya halka qof waa soojkaaga ama soojadaada yani haday maantay yani waxaan dhihi karaa haafkaaga ka dhiman oo naftaada dhameystiraya waa soojkaaga ama soojadaada xaajigaaga ama xaajiyadaada ilaaha ku sheegay quraankiisa dhar ayaa isku tiin u dhahay isku asturnaada marka aqyaaray qofkaas 10 kaas waxyaabad qofka rabtay inaad mustaqbal wada yeelatiin qofka rabtay hada kow kugu soo dhacay inaad naftaada iyo hantidaada ku aaminto waayo naftaadaaba ku aamintay hanti iyo ilmo iyo waa ku aaminaysaa qofka kaliya kugu soo dhacay waa soojkaaga ama waa soojadaada waayo ama xaajigaaga ama xaajiyadaada saa u tiraahdi marka qofka markasta wanaaga yani oo aad jeceshahay inaad la sheegtid yani qofka markasta yani wax kasto dhaco kula joogo oo xumaanta ka reeba waa qofkaaga xaajigaaga ama xaajiyadaada waay hadaa aragtin inaad intay isqabeen oo intay kala tageen ama social media iska caaya ama ilmaha isku haya ama yeeso isku hayn iska caaya ama dhibaato isku geysta ama qof kale ceebtiisa sheega ama ceebihiisa faafiya marka hore aaska isku guursadeen ayaa qaldana oo marka hore guurkooda xalaal ma ahayn yani guurka kaliya shaqin loo tago ama walaayada la bixiyo taas kaliya xalaal kuma noqoto waxyaabo badan marka guursanaysa faqsiina soo sameeysa kamid noqon karta xaaraan ina gurigaaga ribo ku soo dhistaa kamid noqon karta waxyaabo lacaga soo dhacday ina ku soo dhistaa dhinaca been ina ku soo dhistaa dhici karta Soomaalida waxay dhahaan been ayaa lagu soo xirigeliyaa runa lagu dhaqaa wax waxba kama jiraan marka hore guurkaaga hadaad been aad ku soo aasasan uu xalaal yahay qofka hadaa kala tagtiin yani waa qofka kaliya naftaada aad ku aamini kartid yani qofka yani dad iscaynaya hadaa aragtid oo banaanka iskuuna marka hore guurkooda wax ka qaldanaa hadaba aqyaaray hadaa fikirkaas ila qabtid commentiga wixii tala iyo tusaale sida hore kugu sheegay baa inuu furan yahay laagtina waa xageena lana share garay asxaabtaada familkaaga fiidigan quruxda badan sidii uga wada faa'iidaan hadaan ugu cusubtaana sida hore kugu sheegay subscribe free ay ku tahay anigana dhiirigelin ay tahay inta fiidiyo lamida dib ugu kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh